tartanka fardaha ee lixda gobol ee Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa waxaana tartankaasi lagu magacaabay tartanka Gamaan Faras waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyaro iskood suxil qaamay waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo dadweyne aad u tiro badan oo daawanayay tartankaasi fardaha ee dhexmarayay lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland ciyaar aad u xiiso badan oo dhexmartay lixdaasi gobol fardafuuladii kala matelayay ayaa aakhirkii waxa isku soo haray gobolada Maroodijeex iyo Saaxil oo koobka isugu yimi waxaana guuleystay gobolka Maroodijeex aadan cabdixakiin maxamed abyad iyo Salabaan Ali Cabdillaahi oo mahrajaan ku magac dheer oo ah dhalinyaradii soo qaban qaabiyay tartanka ayaa markii uu koobkaasi dhamaaday ee gobolka Maroodijeex uu ku guuleystay waxay la hadleen telefishinka Home Cable walaal aad iyo aad baad u mahadsantiin Home Cable ilaa maalintii barnaamijku bilaabmay ilaa maanta waxa weeyaan dhexdo aanu kaga jirno wali mu gabagabowin barnaamijku waan idin mahadnaqaynaa qaabkii wanaagsan ay nolol shaqaynayseen mar labaadka galabta ciyaartii waxa weeyaan noo dhacday oo waxa weeyaan ay ku tartamay lixda gobol waxa isku soo haray laba gobol gobolka Maroodijeex iyo gobolka Saaxil waxaana guuleystay gobolka Maroodijeex caasimadda ayaa guuleysatay ka gudi ahaan waanu u mahadnaqaynaa waanu hambalyeeynaa afka oo kaliyana nagama ahee waanu abaal marinaynaa oo waxaanu qaban qaabinaynaa xaflad weyn oo lagu abaal marinayo Muuse iyo faraskiisa oo u tartamay gobolka Maroodijeex taasina insha Allah taala waqtiga qabsoomayso dib aan ka soo sheegaynaa dama aan waxa soo bilaadan halka isugu keenay ilaahay idankii oo wax weeyaan barnaamijka wax weeyaan u guba oo wadanka ku cusub oo aan hore loo sameeynin aan maanta aniga iyo tiimkayga aan qaban qaabinay isla markaana aan ku guuleysanay guul iyo go'nimo aan warqaabtay ma sii wadaysaan sanadada dabana way noo qorshaysantahay inaan sanadada daba sanad kasta wax weeyaan maanta qabiyo qoraal buu iska ahaa sidee wax weeyaan dadweyne oo socday oo qaar ba ka dhacayay qaar ba la ciireysay qaar ba wax weeyaan marka lagu soo kadiyay yar naxnaxayay sanadka dambe waxa naga go'aana biidnillaahi mawla inaanu sidaas ka kaleersan oo ka training fiican oo ka wax weeyaan experience rag aanu imika beeraha nagu jiro oo aan tababarayno ayaan doonaynaa inaan wax weeyaan sanadka daba keena hadii Ilaahay ka dhigo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed xanaanada xoolaha Xasan Gaafadhi gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed iyo xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac ayaa iyaguna waxay hambalyeeyeen tartankaasi iyo waliba dhalinyarada isxilqaamay ee soo qaban qaabiyay tartankan fardaha oo ah tartan inagu cusub oo bilow ah oo runtii ay iqtiraaceen dhalinyarada reer Soomaaliland runtii farduhu waa dhaqan waana qurux ilaahay baana subxaanahu wa ta'aala quraankiisa ku tilmaamay fardafuulkuna wuxuu ka mid yahay sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam runtii waa arrin u baahan in la dhiirigeliyo iyo dhalinyarada soo qaban qaabisay fardaha oo halkan inala joogta oo ninka bartiga taagan goofiyada cas baan mar labaad u soo dhaweynayaa maalintii labaad waxaan rajaynayaa dadweynaha ka soo qayb galayna aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanu rajaynaynaa maanta oo aynu ku guuleysano insha Allah taala tartanka ciyaaraha fardaha aynu taaganahay fiican bay noogu dhici doona golana waa mas'ala xafaduna mas'ala magac xafada ku hadlaya si wanaagsan u daawada fardafuulka u tartamaya gobolka Maroodijeex ee guuleystay ayaa telefishinka Home Cable waxa uu la wadaagay dareenkiisa Musaid Cabdi Rawis aad baan u wanaagsanahay marka guul baan rajaynayaa inaan guushi waan qaatay ma garanaysaa marka aad baan u fiicanahay waxa xusud mudan in wiilka kale ee uu koobka ka qaaday ee gobolka Saaxil u tartamayay in ay walaalayihiinba barbarkiisa ayuu taagay bal adiguna walaal iska waran walaal waxaan leeyahay hambaliyo boqolkiiba meel baan wax ka baranaha degmada dacartan soo wada qalin jabinay isu meel baan ka soo baxnay waanan u hambalyeynaya boqolkiiba 90 adigu hadda degmada dacarta gobolka Maroodijeex tahay walaalkaana uu Maroodijeex u tartamayo maxaa Saaxil ku geeyay waxa Saaxil geeyay way waayeen wax u tartama Xasan Suleymaan Haruun Xasan Galay wararkoodii